wanaagsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idinaysa waxa uu dooran madaxweyne Farmaajo oo qaabili waqti ka socda qaramada midoobay madaxweynaha Jubbaland oo gudoomiyay kulan looga hadlay amniga Puntland oo warka soo saartay doorashooyinka maamulada Jubbaland iyo Galmudug qabanqaabada soo dhaweynta ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo maanta ka socota magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ka jiray mashaariic looga hirgeliyay magaalada Xudur ee gobolka Bakool iyo dawladda Eritrea oo saxiixin heshiiska soonka ganacsiga xorta ee Afrika daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idinaysa kuwada ugu door karoon haddii aad ku cusub tahay barteena YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo guji gambaleelka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka markaan soo galino barteena YouTube-ka daawadayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay oo qaybsanaha dhanka taageerada howlgallada xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane Atul Kheyre madaxweyne Farmaajo iyo mudane Atul Kheyre ayaa ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya dadaalka dawladda ay ugu jirto dib u soo kabashada dalka iyo mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ka wada Soomaaliya madaxweynaha ayaa u qaabilsanaha kala hadlay dardargelinta dadaalada xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ku garab istaagayo howlgallada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM si looga mir dhaliyo dagaalka lagula jiro Al-Shabaab madaxweyne Farmaajo ayaa soo jeediyay in u qaybsamaha dhanka howlgallada ee xogayaha guud in xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya uu xooga saaro sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo qaato shaqooyinka qaramada midoobay madaxweynaha ayaa sidoo kale mudane Kheyre kala hadlay in dhismayaasha qaramada midoobay ee Soomaaliya noqdaan kuwo waara oo aan ku meel gaar ahayn si loogu adeego bulshada marka howlaha haatan loogu talagalay ay dhamaadaan isaga oo adkeeyay in dawladda federaalka ee Soomaaliya mudnaan gaar ah siinayso ilaalinta deegaanka dhankiisa mudane Kheyre ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran isaga oo ballan qaaday inuu ka shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa qodobada ay ka wada hadleen iyo dardargelinta taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xarag ka jaray mashaariic laga hirgeliyay Xudur madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa inta uu joogay magaalada Xudur ee gobolka Bakool xarag ka jaray mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin wadooyin oo dhismahooda muddo socday waxaana dhismaha wadooyinka iska kaashaday hay'adda GBLG iyo maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waxa uu dhagax dhigay dhismaha MCH cusub iyo dhismaha wado muhiim ah oo socodka shacabka ee gaadiidka oo gaaraysa 1.5 kiiloomitir qayb weyn ka qaadanaysa horumarinta deegaanka madaxweynaha iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada Koonfur Galbeed ayaa shacabka magaalada Xudur kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan si deegaanka loo horumarin lahaa lana shaqeeyaan maamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa muhiimadda mashaariicdan qaarkood xariga uu ka jaray halka kuwa kale oo dhagax dhigay ku tilmaamay mid loogu talagalay inay shacabka degmada Xudur ka faa'iideystaan wuxuuna u ballan qaaday inay karaankooda ka hagaran doonin shacabka kalena madaxweynaha Jubbaland ayaa gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa ka dhacay kulan looga hadlayay amniga maadaama dhawaan doorasho ay ka dhacayso magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose kulanka ayaa waxa shir gudoomiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaana diiradda lagu saaray sidii dhammaan hay'adaha amnigu isaga kaashan lahaayeen sugidda nabadgelyada madaxweynaha Jubbaland ayaa madaxda saraakiisha kulanka ka qayb gashay waxa uu ku booriyay in la dardargeliyo sugidda amniga deegaanada Jubbaland si gaar ah xarumaha ay ka dhacayso doorashada dawlad goboleedka Jubbaland ee la filayay inay dhacdo bisha Agoosto ee sanadkan dawlad goboleedka Puntland ayaa war ka soo saartay doorashooyinka maamulada Jubbaland iyo Galmudug dawlad goboleedka Puntland ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya uga digtay fargelinta arrimaha doorashooyinka Jubbaland dawlad goboleedka Puntland ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya uga digtay fargelinta doorashada Jubbaland waxayna sheegtay shacabka Jubbaland iyo Galmudug xaq dastuuri ah u bareenayo inay qabsadaan doorasho wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa sheegtay inay muhiim tahay ilaalinta madaxbannaanida doorashooyinka maamul goboleedyada war saxaafadeed ka soo baxay ayaa lagu sheegay sidan dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay u taagan tahay kana shaqeynaysaa midnimada iyo dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed oo ku dhisan hanaanka lagu heshiiyay ee federaalka ah haddaba wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland iyo raacaysa war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 6 July 2019 kuna saabsanaa habraaca doorashada dawlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya waxay ka digaysaa fargelinta qaawan ee dawladda federaalka ah ku hayso arrimaha gudaha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay si gaar ah ugu burinaysaa wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka ah inay ixtiraamto doorashooyinka u qorsheysan in dadka reer Galmudug iyo Jubbaland ku soo doortaan madaxdooda si waafaqsan shuruucda iyo dastuurada u gaarka ah dawlad kasta ee xubinka ah dawladda federaalka ah sida uu qabo dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka qodobkiisa 120aad dalka Soomaaliya wuxuu ka soo kabanayaa khilaaf siyaasadeed iyo colaado ragaadiyay dhismaha hanaanka dawladnimo sida daraadeed dawladda Puntland waxay u soo jeedinaysaa
dowladda federaalka ah iyo dhammaan dowladaha xubnaha ka ahba in la dhooro laguna dhaqmo dastuurka dalka ee lagu heshiiyey lagana fogaado wixii keeni kara colaad iyo kala fogaansho siyaasadeed oo ka dhalan kara habdhaqanka hareer marsan dastuurka federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafada ka soo baxay dowladda Puntland. Magaalada Gaalkacyo waxaa ka socota qabanqaabada soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wararka maanta ka imaanaya waxay sheegayaan in wafdi ballaaran oo ka soo kicitamaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo ku sugan yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay ku wajahayeen maanta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ayaa xaqiijiyay tagitaanka Khayre ee magaalada Gaalkacyo isla markaana bulshada halkaas ku nool kala hadli doona sidii loo dhameyn lahaa khilaafka maamulka Galmudug. Qabanqaabada soo dhaweynta ayaa maanta ka socota magaalada Gaalkacyo waxaana gaaray wafdi hordhaca ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa la kulmi doona odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo, siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana sharxi doona wajiga cusub ee Galmudug maadaama dowladda Soomaaliya ay la wareegtay dib u heshiisiinta iyo doorashada Galmudug. Ugu dambeyntiina dowladda Eritrea ayaa saxiixin heshiiska soonka ganacsiga horta Afrika. Madaxda Afrika ayaa ku kulansan magaalada Niamey ee caasimadda dalka Niger si ay ugu dhawaaqaan soonka ganacsiga horta ah oo ka wada dhaxeeya dhammaan qaaradda Afrika. Barnaamijka soonka ganacsiga horta Afrika ayaa haddii uu guuleysto waxa uu mideyn doonaa 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Waxa uu abuuri doonaa fursado ganacsi oo gaaraya 3.4 trilyan oo dollarka Mareykanka ah. Mashruucan oo Afrika u furi doona bag cusub oo horumar dhaqaale ah ayaa wadahadalkiisu ay soo bilowdeen 17 sanadood ka hor hase yeeshee kadib 4 sano oo wadahadallo aad u adag oo ay dhammaan madaxda Afrika ka yeelanayeen ganacsiga horta ah ee qaaradda ayay hogaamiyaasha dhaqaajiyeen mashruucan ganacsiga. Musa Faki oo kamid ah madaxda midowga Afrika ayaa furitaanka shirweynaha madaxda Afrika oo socon doona isbuucan ayaa Afrika ku sheegay in ay horumar taariikhi ah ku tallaabsanayso. madaxweynaha Masar Abdel Fattah al-Sisi oo hadda ah gudoomiyaha midowga Afrika ayaa isna sheegay in indhaha caalamka oo dhan ay hadda soo eegayaan qaaradda Afrika. dalka Eritrea ayaa noqday dalka kaliya ee aan saxiixin heshiiska soonka ganacsiga horta ee Afrika, halka Niger oo ah dalka ugu weyn dhaqaalaha Afrika oo ahaa dalkii ugu dambeeyay ee saxiixay heshiiska soonka ganacsiga horta ee Afrika. Tallaabada ugu horeysay iskaashiga ganacsiga horta ee Afrika ayaa ah dalalka ay turaan ama aad u yareeyaan canshuuraha ay saari jireen badeecadaha ee dalalka Afrikaanka ah kala iibsadaan, laakiin waxaan wali lagu dhawaaqin waqtiga rasmiga ah oo bilaaban doona barnaamijkan. warkii oo daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.